السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta xalqadan kaga hadlaa mid ka mid ah qaadiyada ugu cadaalada ee maskaxda badnaa ee taariikhda soo mara. Haddaba hadda nagu cusub tahay subscribe saar oo nagu soo biir. magaciisa oo dhammaystiran waa Abu Wathilata Iyaas bin Mucaawiyah bin Qurrata al-Muzani وانا قاضي بصرة sidoo kale waa mid ka mid ah waaweynka taabiciinta waxa uu dhashay sanadkii 46 hijriga waxaana ku dhashay magaalada Yaamaba oo ku taala Najdi waxaana uu guuray isaga iyo qoyskiisa magaalada Basra halkaas aanu ku barbaaray cilmiga ka qaatay waxa uu dhashay ku soo noqday Dimashq soo cilmi uga qaatay saxaabadii nabiga ee halka joogtay waxaana maskax badnaantiisu soo baxay isagoo ilmo yar ah markii Cabdimalik ibn Marwan uu soo boqday Basra koorintaan la kulmin khilaafada Islaamka waxa warkay maalinka Iyaas oo wiil dhalinyaro ah oo wali shaarbu ku dhigin wajigiisa waxaanu gadaashiisa ku arkay afar kamid ah quraada oo harag waaweyn waxa tagarku ku dhigay oo isagu hadana tujinayo waxaana Cabdimalik ku yiri Iyaas imsa jirta wiil yahow waxaan ugu jawaabay amirkaygi oo dadaydu waxay la mid tahay dadii Usaama bin Zayd markii nabigu hoggaan uga dhigay ciidan ay gudihiisa ku jiraan Abu Bakr iyo Umar waxaana Cabdimalik ku yiri Iyaas wiil yahow hore soco isagoo dhiirigelinaya ilaahayna ku barakeeyo waxaana faaftay maskax badnaanta Iyaas iyo cadaaladiisa waxa uu noqday qaadimi walba looga yimaado waxa la weydiin jiray wax walba la soo khilaafo waxaana kamid ah maskax badnaantiisii inuu koofu joogay in uu muujisto dadka wanaag oo dadka dhexdooda ka gacan baxay xalaal meerasho ilaa maantiisu badatay waxaana qaar ka dhigteen amiin ay wax ku aaminaan waxaana kaga tagi jireen xoolooda markay safrayaan waxaana u dadaami jireen carruurooda markay dareemeen geerida oo soo dhawaatay maalmaha kamid ah ayaa waxa uu yimid nin waxa uu dhibtay xoolihiisii kadib markii ninkii uu soo noqday xoolihiisii u yimid inuu qaato waa uu ka dafiray waxa uu ninkii uga dacwooday Iyaas waxaanu Iyaas ku yiri ninkii xoolaha laga dhacay miyuu oga saaxiibkaanadii imanayso waxaan ugu jawaabay maya muu ogay waxaan ku yiri iska tag oo hadda balbari igu soo noqo inta kadib wuxuu u yeeray ninkii xoolaha dafiray waxaan ku yiri waxaan rabaa inaan xoolo aad u badan ku dhiibo amaan kugu aamino markaa ma haysaa meel iyo waqti waxaan ugu jawaabay haa kadib ayuu ku dhahay bari igu soo noqo horona xamaalin u soo kaxayso qaada xoolahan inta kadib subaxdii waxa uu yimid Iyaas ninkii cabanayay waxaanu Iyaas ku yiri u tag saaxiibka waxaan ku taadaa hadaad xoolahayga siin weydo qaadigan kaaga dacwoonaya inta kadib ninkii isagoo isleh hadii qaadiga laaga dacwoodo sharaftaada ayaa lumaysa waa takarane lacagtii ugu aamini lahaa oo kala noqonaya ayuu ninkii lacagtii siiyay kadibna ninkii oo faraxsanaya u yimid qaadigii uu ku soo noqday una sheegay in lacagtiisa ka helay khaayinka kadib ninkii ayaa yimi isagoo isla qaadigu wuxuu mooga ee lacagta ka qaadid oo lacagta uu aamino aad xamaashid inta kadib wad garan kartaadba wixii ku dhacay ninka tuuga ahaa iyo isagoo naftiisa ka sheekeynaya ayuu yiri waliga qof iga marayn marka laga reebo hal nin waxaanu markaa ku sugnaa goobtii kala xukminta waanu soo galay waxaanu sheegtay in beerta hebel uu isagu leeyahay kadib waxaan isku dayay inaan imtixaamo saanu kala ogaado run iyo been wuxuu sheegayo waxaan ku wari beerta mise geed ayaa ku yaala kadib waa mise in yar waxaan igu yiri insana ayuu qaadigu kan xukumayay isagoo aniga ii jeeda waxaan u sheegay inta ay ahayd kadib ayuu igu yiri qaadiyow ma laga yaabaa inuu qaadigu garto inta loox ee ka kooban saqafka majliskani inta kadib waxaan fahmay ujeedkiisa waana aqbalay marxaatinimadiisii Iyaas waxa uu ku qaatay noloshiisa oo dhan kala xukuminta dadka ilaa uu soo gaaray 76 sano jir kadib waxa uu maalin ku arkay riyo isaga yaabi oo laba faras kala saaran oo tartamaya kadibna kala badin waayo oo muddo mid kale ka hormari waayay waxaanu abiy ku dhintay 76 kadib markuu habeenkii si seexanay ehelkiisa ku yiri habeenkan oo kale ayuu aabahay dhintay iyagu ma fahmin markaa waxa weedo kadib subaxdii ayaa la arkay isagoo mid markaa kadib ayay fahmeen inuu uga jeeday in isaga yaabay isku da ku dhiman doonaan ilaahay uu naxariisto wuxuu ahaa tusaale weyn oo soo maray ummadda islaamka. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.